رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مهدي محمد جوليد أيام مقالة مقدشة كيقب قال حفلات لقوم موسى مانتا الجمهورية الطليانية قدوميها قبل كايران يوسف أحمد حجري يوسف دبقيت أيها سي عبد وجهر يمتحل كغاديستي وكسمية مدحوينها مامور كبير شباب محمد عبد واري محكمة كتالة مقالة مليابلس قبل كمينيسوتا أيها حبسي لبقي 8 سنة بركو حكومة السرقال صومالي مراكنا ولو مقعو محمد نور ولو هلا ديلك هويني قرالة دالك أستراليا askari ka tirsan ciidanka ilaalo ka hayay control ku yaalo nawaaxiga jooska dabka ee magaalada muqdisho ayaa toogtay sarkaal ka tirsan hay'adda dambibaarista CID-da ciidamada Xutiyinta ee dalka Yemen ayaa qarka u saaray inay qabsadaan gobolka Niger dalka Sacuudiga kadib dagaal xooggan oo ka dhacay maalintii ciidda wixii ka dambeeyay qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku daawan doontaan qaranjoog news warkii oo dhameystiran kulanti wacan daawadayaal meelbo aad ka joogtaan dunida aynu ku horeyno ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa maanta magaalada Muqdisho ka qayb galay xaflad lagu maamuusay maalinta Jamhuuriyadda Talyaaniga munaasabadda lagu maamuusay maalinta Jamhuuriyadda Talyaaniga ee ku beegneed 2 Juun ayaa waxa goobjoog ka ahaa safiirka Talyaaniga Soomaaliya oo fadhiyo Master Carlo Camplina iyo mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka رئيس وزراء ku-xigeenka dalka ayaa dawladda Talyaaniga uga hambaliyay xuska maalinta wuxuuna uu sheegay in Talyaaniga iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir xooggan oo soo jireen ah laga soo bilaabo 1946 sanad kasto ayaa dalka Talyaaniga iyo safaaradaha uu caalamka ka leeyahay waxa laga weynayaa 2 bisha Juun maalinta Talyaaniga uu ka guuray boqortooyada uuna isku bedelay jamhuuriyad markaana balodweyne gudoomiyaha gobolka Iiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa si adag ugu jawaabay xilka qadistiisa uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare wareegto ka soo baxday madaxweyne Waare xilka looga qaadayo Yuusuf Dabageed qolaf xoogan kala dhaxeeyay madaxweynaha waxa uu madaxweynuhu u Hirshabelle magacaabay gudoomiye cusub oo yeelanayo gobolka Iiraan Yuusuf Dabageed ayaa qosol ugu jawaabay sida uu arko xilka qadistiisa uu ku sameeyay waxaana uu sidoo kale tilmaamay in bulshada gobolka Iiraan ay ka tashanayaan madaxweynaha Hirshabelle Waare oo ku eedeeyay inuu haatan ka soo horjeedo horumarka bulshada Iiraan balagaanada balodweyne ayaa laga dareemaya xiisada ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Iiraan waxaana uu Yuusuf Dabageed ka biyadiiday inuu xilka wareejiyo sidoo kalena uu ka baxo xarunta gobolka wareegtadani ayaa noqonayso mid uu ku gacan saaro gudoomiyaha gobolka Iiraan Yuusuf Dabageed waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka Iiraan ayaa wado dalaalo lagu xalinayo xiisadaha ka aloorsan Yuusuf Dabageed iyo madaxweyne Waare waxayna sidoo kale Yuusuf Dabageed lagu qancinayaa inuu si nabadoon xilka ku wareejiyo khilaafka Waare iyo dabcan Dabageed ayaa ka dhashay anshuuraha gobolka Iiraan la sheegay in madaxweyne Waare qoonto badan ku leeyahay laguna shubo akoon gaar ah waxaana lacagtaasi si loogu talagalay in wax loogu qabto gobolka dhamaanba uu jeebka madaxweyne Waare ku dhaca markaana dalka Mareykanka maxkamad ku taala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ayaa 12 sano bad xabsiga ku xukuntay sarkaal Soomaali Mareykan ah oo lagu magacaabo Maxamed Nuur oo lagu helay dilka weyn u dhalatay dalka Australia heerbeegta ka kooban 12 ruux ayaa isku raacay in Maxamed Nuur dilka geystay waxaana isku raaceen in 12 sano bad xabsi ah lagu xukumo iqaabta dilkaasi uu geystay Maxamed Nuur ayaa lagu helay inuu dilay haweeney lagu magacaabo Rose Diamond oo u dhalatay dalka Australia waxaana uu dilka haweeneydaani dhacay 15 bisha July 2017 gurigeeduna uu ka dhacay askariga Soomaali Mareykanka ah ayaa qirtay inuu dilay haweeneydaani aan hubeysnayn waxaana uu xusay in cabsi la soo diristay isaga iyo saaxiibkiisa sidaas darteedna uu ku furo risaas sababtay in haweeneydaani u geeriyoota waxaana uu xeerbeegtada Maxamed Nuur ay sheegtay inay rumaysan tahay inay halis ku soo wajahneed markii uu maqlay dhawaqar isla markaana arkay dimood oo gacanteeda midigta taagaysa markaana magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in askari ka tirsan ciidankaasi oo la ka ah control ku yaal nawaaxiga isgooska dabka ee magaalada Muqdisho uu ku toogtay sarkaal ka tirsan ciidanka dambaarista CID-da Cabduhaab Aadan oo ahaa madaxii dambaarista saldhigga degmada Waabari waxa xilliga la tooganay uu watay gaariga nooca raaxada ah kuwa yaryar dilka ayaa ka dhacay kadib markii sarkaalkaani uu nawaaxiga isbitaalka Daarushifa uu ka soo xiray 3 askari oo gaari ay wateen
kuwaas oo haysto rasaas oo xalay laga maqlayay wadada Makka al-Mukarrama oo ciidamadaasi loogu shaqeeyay inay rideen ciidamada booliiska ayaa wada howlgallo lagu baadigoobayo askarigan dilka geystay oo haatan la sheegay inuu ka baxsado goobtii waxa uu ku dilay lamana oga sababtii uu dilkaasi sarkaalkaani ujeedkiisii ka dambeeyay markaana dalka Yemen ciidamada Xutiyinta dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay qabsadaan gobolka Niger ee dalka Sacuudiga kadib dagaal xooggan oo ka dhacay maalintii ciidda iyo wixii ka dambeeyay mucaaradka Xutiyinta ayaa weerar xooggan ku qaaday gobolka waxaana ay qabsadeen dhowr goobood oo military ah oo ku yaalo gudaha gobolka dhinaca koonfurta Sacuudiga sida ay sheegeen afayeenka Xutiyinta oo hadlaya Yaxya Siriya ayaa wakaaladda wararka ee saabay dalka Yemen ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 20 goobood military ah oo ku yaalo gobolka Niger afayeenka hadalkiisii wata ayaa wuxuu yiri ciidamadeena waxay awood ka badiyeen kuwa naga soo horjeedo 3 weerar ayaan ku qaadnay oo 3 dhinac waa sidoo hadalka u dhigay Yaxya waxaana uu sheegay inay dileen ama ay dhaawaceen in ka badan 200 oo dagaalyahano caloosheed u shaqeystayaasha ah oo u dagaalamaya Sacuudiga intii uu socday dagaalka halka qaar kalena ay gacanta ku dhigeen waxaana uu sidoo kale sheegay in ay qabsadeen agab ciidan telefishinka Xutiyinta ee al-Misrah ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya in ciidamada oo dilayo ciidamada daacad u ah Sacuudiga ee gobolka Niger ka dagaalamaya inta badan ciidamada Sacuudiga ah ee u dagaalamaya gobolkaasi Niger ayaa ahayn Sacuudiyaan badankoodu waxay ka soo jeedaan dalka Yemen waxaana maleeshiyaadkani sabool ah oo ka dagaalamaya lacag darteed ah mid kamid ah dagaalyahanada u dagaalamayo caloosha u shaqeystayaasha ayaa sheegay ama uu warramay wargeyska Middle East markii uu Ramadaankii dhamaadka ahaa ciidan badan ayaa naga tagay waa sidoo hadalka u dhigay oo aaday qoysaskoodii sidii ula soo ciidaan waxaana ay ciidamada Xutiyinta wayna ogaadeen tan iyo sidaas darteed waxa ay nagu soo qaadeen dagaal culus waa sidoo hadalka u sheegay dagaalkani ayaa wali ka soconayo Niger waxaana Xutiyintu ay sheegayaan in ay ku dhow yihiin inay gacanta ku dhigaan gobolkaasi oo idil war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray inta ayuu nagu yahay waxaana ka daawanayseen qaran joog news